waxaan idila wadaagi doonaa 7 xaqiiqo oo qaraar oo markii aad ogaato nolosha ku iftiimin doona. Haddii aad baadigoob ugu jirto talooyin dabacsan oo nolosha ku saabsan, haddaba kuwani sidaas ma ahan. Talooyinkan 7 ah ee qaraar waxaa laga yaabaa in maqalkoodu dhagto u bogweyso, balse waxaa la hubaa in ay kugu caawin doonaan habeynta nolosha. Haddaba kan ugu horeeya, qof ay shaqadiisu tahay in uu adigu ku toosiyo ma jiro. Naftaada adigu toosi. Ma waxaa jira wax aad tabayso ama aad danaynayso? Haddaba hel. Ma ka taalaa jiifka ka kac oo raadso wax ku farxad geliya. Ha sugin in aad bakhtiya nasiib ku guulaysato oo aad maalin un taajir aad noqoto, ama dhibkaaga in ay malaa'ig xaliso. Garo waxa aad u baahan tahay, xilka adiga isa saar, kadibna waxa aad xaq u leedahay adigu soo dhacso. midka xigana wuxuu yahay ma jiro wax dhameystiran. Waqtigan kuma haboona in aan jim bilaabo, waqtigan kuma haboona in aan ganacsi bilaabo, waqtigan kuma haboona in aan hurdada ka kaco, waqtigan kuma haboona in aan waxbarasho bilaabo, waqtigan kuma haboona in aan isbedel sameeyo. Saaxiib runta ogolow. Haddii aad sugto waqtiga ku haboon, meesha haboon ama xaaladda haboon, waxaad is arki doontaa adiga oo sakaraadaya, gacantana ku haysta liis aad u dheer oo qoomamayn ah oo ku saabsan waxyaabihii aad jecleed in aad qabato balse aadan qaban. Inta ay goor tahay u dhaqaaq xaqiijinta riyooyinkaaga. Waa midka saddexaad waxa uu leeyahay waxay u badan tahay in aad guuldareysan doonto. Aristotle ayaa laga hayaa inuu yiri sida kaliya oo aad daliil uga fogaan karto waa adiga oo aan waxba sameynin, waxba dhihin, waxbana aadan noqonin. Aristotle waa nin xilli hore oo aad u fog noolaa, balse taasi hadalkiisa kama dhigayso mid duug ah oo uu saxan yahay. Guuldaradu waa wax caadi ah oo wax nolosha qayb ka ah. Qof walba waa uu guuldareysanaya. Way dhici doontaa in aad been isu sheegto ama aad daganto. Go'aan qaldan waad qaadan doontaa. Dhunkasho ama macsiin way kaaga fakan doontaa qof aan ku habboonayn. Waad il duufi doontaa, waadna ka shalayn doontaa. Taasi waa caadi, balse marka aad kufto kac oo boorka iska jaf. Marka koowaad oo aad khaldanto ama ay ku toosi weysay darteed nolosha ha uga rajo dhigin. Waxaan jeclaystay in aan saddexdaas idin soo hormariyo. Muuqaalka xiga ayaan ku soo gudbin doonaa 4 hartay. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaan ku leeyahay ku raaxayso noloshaada. Peace.